Soomaaliya oo maanta ka soconaya magaalada Baydhabo haweenka ayaa loo xiray 2 kursi oo gaar ah maleeshiyaad ka tirsan Taalibaanna waxa ay gantaalo la dhaceen garoonka diyaaradaha ee Kandahar xilay sii wadaan weerarka ka dhanka dawladda Afghanistan waxaad kaloo maqli doontaan alxamdulillah waxaan rajaynayaa inta kalama fiican ka helo oo tatakana soo diyaar garoobay intuu Ilaahay waafajiyo insha Allah saddex juz oo Quraanka dhana ku tartama insha Allah inta kaalinka koowaad inta qaataa waa insha Allah biidhnillah waa mid ka mid ah dhalinyarada ku tartami doona tartanka Quraanka Kariimka ee Minnesota waddanka Mareykanka ee sanadka qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan ay soo saartay Kawthar Maxamed Cabdullaahi anigoo Cabditaah Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashi mahadsanid Cabdifataax 6 bilood kadib markii ay awoodda qabsadeen ayaa madaxa dawladda militariga ee Burma General Min Aung Hlaing waxa uu ballan qaaday inuu muddo 2 sano gudahooda ku qaban doono doorasho xisbiye badani ku tartamaan wuxuu ku tilmaamay xisbigii uu talada ka qaaday ee hogaaminaysay Aung San Suu Kyi ee National League for Democracy kuwa xag jir ahaa tan iyo intii ay militarigu talada la wareegeen waxa Myanmar ka taagan qalalaase General Chin Aung oo telefishinka shacabka khudbad uga jeediyay ayaa yidhi waxaanu soo afjaraynaa qodobada lagu dhaqo xaaladda degdega ee dalka wixii loo gaaro bisha Agoosto 2023 waxaa qasab nagu ah inaynu abuurno xaaladaha lagu qaban karo doorasho guud oo xor iyo xalaal ah oo xisbiye badan ay ka qayb qaadanayaan waana inaynu arrintaasi u diyaar garownaa waxaanan ku baaqayaa in la qabto doorasho guud oo xisbiye badan ay ka qayb qaadanayaan taas oo ay tahay in waqtigeeda lagu qabto madaarka magaalada Kandahar ee koonfur bari ee Afghanistan ayaa la xidhay kadib markii 2 gantaal ay ku dhaceen dhabaha diyaaradahu ka duulaan weerarkan lagu qaaday airportka ayaa dhacay iyadoo uu socdo gulufka ay Talibaanku ku hayaan dawladda Afghanistan mitidiintaas ayaa sidoo kale weeraro ku ekeeyay magaalooyinka Herat iyo Lashkargah digreeto ay soo saartay xukuumadda Sacuudigu ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta ay waajib tahay in dadka gelaya dukaamada iyo goobaha ganacsiga ama isticmaalaya gaadiidka dadweynuhu ay ka talaalan yihiin fayraska corona wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in talaalku shardi u yahay adeegsiga goobaha guud ahaanba gobollada dalka oo dhan dalka Cambodia ayaa bilaabay talaalka markii saddexaad la siinayo shaqaalaha caafimaadka si loo xoojiyo difaaca jidhkooda waxaana haatan lagu mudayaa talaalo la isku dhafay si difaacoodu uu aad ugu sii xoogaysta baa la yidhi dabka holcaya kaymaha oo uga sii daray heerkulka oo aad u sarreeya ayaa ka dhex xulaaqaya dalalka Giriiga Turkiga iyo Lubnaan waxaanu kalifay in 100 tuulo oo gobolka ku yaala dadka laga daadgureeyo 6 qof ayaa ku dhintay koonfurta Turkiga maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa u gurmaday dad ku dalxiisayay magaalada Magnaved ku dhawaad 60 meelood oo ku yaala kaymaha Giriiga ayaa sidoo kale uu dabkaasi ka holcaya warkii duhurnimada waa naga taagaystayaal aad u mahadsantahay Axmed Nagaashi ayuu kaasi ahaa wararka caalamka qodobadii ugu door corona ayuu nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka waa tahay inuu ku bilowna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddanka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ku duqeeyeen deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug ee Soomaaliya duqeynta ayaa imanaysa xilli dagaal uu halkaasi ku dhex marayay ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Al-Shabaab dawladdu waxay sheegtay in halkaas ay ka wado olole ay ku tilmaantay inay gobolka Mudug uga sifaynayso ururka Al-Shabaab dagaalka socday muddo toddobaadyo ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay dad badan ku dhinteen hadaba wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi waxa iyo waliba duqeyntaba waxa inoo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo haatan khadka Luzi Live toos ugu jira Ibraahim waxa ugu dambeeyay dhanka dagaalka iyo duqeyntaba Cabdifataax oo dadka deegaanka Qaycad iyo aagga Bacadweyn ku sugan oo BBC-da la hadlay waxay sheegeen in ugu yaraantii 3 gantaal oo xoog leh inay maqleen iyadoo ay ku dhacayaan aaggaasi waxay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeyntaasi geysteen dabadeed waxay sheegeen inay maqleen hub culus oo ay isku reedayaan ciidamada dawladda oo ay taageerayaan ciidanka maamulka Galmudug iyo xogaga Al-Shabaab ee aagagaasi ku sugan ilaa hadda lama oga khasaaraha duqeynta xagga cirka ah ee aagaga Al-Shabaab ay ku sugnaayeen ku dhacday maanta waa duqeyntii saddexaad oo tan iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay markii gulufka military ay bilaabeen ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ee ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Mudug labadii duqeyn oo hore
labadii duqeyn ee hore waxaa geystay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Mareykanka sida dadka deegaanku ay BBC-da u sheegeen waxay filayaan in duqeyntii maanta ilaa saddexda gantaal ee agaasi ku dhacday inay geysteen diyaaradaha Ameerikaanka. Cabdiyo Ibraahimow, ilaa hadda dhinacyadu ma ka hadleen dagaalada iyo duqeynta qaycada ka dhacday? warbaahinta dawladda oo soo xiganaysa saraakiisha militariga Soomaaliya ee aagagaasi ku sugan waxay sheegtay in ciidamo badan oo ka tirsan al-shabaab in duqeynta xagga cirka ah iyo weerarkii xigayba lagu dilay, laakiin tiro rasmi ah ma aanay soo bandhigin. laakiin warbaahinta al-shabaab war ka duwan ayay sheegayeen, balse waxay xaqiijiyeen in duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday aagag ay ku sugnaayeen ciidamadooda. waxay sheegeen in markii duqeyntu ay dhacday kadib ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay damceen in ay fooda geliyaan aagaga ay al-shabaab ku sugnaayeen, laakiin ay halkaasi ku jabiyeen ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab kuwa galmudug dibna ay u waabiyeen oo ay dib ugu laabteen. dadka deegaanku aan la hadlo waxay sheegeen in xaaladdu hadda degan tahay, wax rasaas ah oo la maqlaya aagagaasina Cabdi Fataax oo aanay jirin hadda. aad baad u mahadsan tahay Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ah oo khadka taleefanka ee Luusilef toos ugu jiray oo faafahinta warkaasina siinayay. wixii ka soo koran idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan, balse markan war kooban. madaxweynaha jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa shaaciyay in maalinta Talaadada ee soo aadan uu qabsoomi doono kulanka ugu horeeya ee xildhibaanada golaha wakiilada ee dhowaantan la soo doortay. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa bayaan uu goordhaweyd soo saaray waxa uu isugu yeeray golaha wakiilada cusub, arrintaas oo daba socotay go-aankii maxkamadda sare ee Somaliland ay 7 bishii tagtay ee Julaay ku ansixisay natiijada doorashada golaha wakiilada. madaxweynaha Somaliland oo haystay muddo 30 cisho oo dastuuri ah oo ka bilaabanaysay 7 bishii Julaay ayaa leh awoodda shaacinta marka la qabanayo kulanka ugu horeeya ee xildhibaanada golaha wakiilada ee marka la soo doorto, markaas oo la dhaarin doono mudanayaasha isla markaana ay iska dhex dooran doonaan shirgudoonkooda. waxaana la filayaa in kulanka ugu horeeya ee Talaadada dhici doona ay xildhibaanada isugu iman doonaan halkaas oo madaxweyne muuse biixi cabdi uu khudbad ka jeedin doono. waa tahay halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay markana bal magaalada Baydhabo aynu tagna halkaas oo maanta ay ka socoto diiwaangelinta 10 musharax ee u tartami doona 5 kursi oo ka mid ah 8 kursi ee xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu ku leeyahay koonfur galbeed ee Soomaaliya, kuwaas oo doorashadoodu dhowr jeer hore dib loo dhigay. haddaba diiwaangelinta kadib waxaa la filayaa in xubnaha buuxiya shuruudaha guddiga doorashooyinka ay berri ku tartamaan codka golaha wakiilada koonfur galbeed oo u codayn doona musharaxiintaasi 5 kursi u tartamaysa. doorashadana maamulka koonfur galbeed waxa uu u xiray dhanka haweenka 2 kursi oo gaara oo haween kaliya ku tartamayaan. dhinaca kalena madaxweynaha galmudug ayaa waxaa lagu baaqay inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee deegaanada maamulkiisa. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliya waxaa Muqdisho ka soo diray warbixintan kusoo koobaya wariyahayaga Ibraahim Maxamed Aadan. 10 xubnood oo 4 ka mid ay yihiin gabdho ayaa bilaabay inay iska diiwaan geliyaan guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed, iyadoo ay goobjoog ka yihiin xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal. 10 murashax waxaa shalay wareegta ku soo saaray madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. 5 kursi ee loo tartamaya 2 ka mid ah ayaa loo xiray dumarka oo kaliya, waxaana ku tartamaya 4 hablood oo la kala yiraahdo Samsam Ibraahin Cali iyo Shariifa Xaaji Cusmaan Ibraahin oo 1 kursi ku loolamaya, iyo Ayaan Aadan Cabdilaahi iyo Farxiye Nuur Aadan oo iyana ku tartami doona kursi kale. 5 kursi ee loo tartamaya ayaa qayb ka ah 8 kursi ee koonfur galbeed ku leedahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. shuruudaha diiwaangelinta waxaa ka mid ah in murashax kasta oo rag ah uu koontada baanka guddigu leeyahay ku shuba lacag dhan $20,000, tiyo dumarka isi soo sharaxayna laga rabo $10,000. lacagtaas oo aan loo celin doonin xitaa haddii tartanka looga adkaado. waxaa kaloo shuruudaha diiwaangelinta ka mid ah in murashax kasta soo gudbiya gal ay ku cad yihiin inuu yahay muwaadin Soomaali ah oo da'diisu aanay ka yarayn 25 sano, leeyahayna ugu yaraan waxbarasho dugsi sare ama waaya-aragnimo u dhiganta, inuu soo gudbiyo warqadda dambi la'aanta ee hay'adda dambi baarista booliiska iyo inuusan ka tirsanayn kooxaha loogu yeero argagixisada. xubnaha shuruudahaasi buuxiya iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in qofka dhimirkiisu taam yahay ee ka midka 10 xubnood ee uu soo gudbiyey Laftagareen ayaa berrito baarlamaanka koonfur galbeed u kala codayn doona. maamulada kale ee Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo guddiga maamulaya kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland ayaan ilaa hadda soo gudbin liiska murashaxiinta u tartami doonta aqalka sare ee deegaanadooda. ilaa hadda Jubbaland iyo koonfur galbeed baarlamaanadooda oo kaliya ayaa bilaabay qorshaha hirgelinta doorashada sanatarada aqalka sare.
khamiistii ayay ahayd markii 4 sanatar ay ka soo baxeen doorasho loo qabtay 9 murashax uu soo gudbiyay madaxweyne Axmed Madoobe kuwaas ay u codeeyeen golaha wakiilada ee Jubbaland. dhinaca kale guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ayaa warqad ugu diray madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uga codsaday inuu soo gudbiyo liiska murashaxiinta sanatarada aqalka sare ee ka soo galaya Galmudug. Ibrahim Maxamed Aadan, BBC, Muqdisho. ibraahim aday uu mahadsan yahay. dhegeystayaal hilmaan hadal kuma jira madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ma tagi doono dhanka iyo baarlamaanka se yeeshee isaga awoodda leh inuu ku dhawaaqo maalinta la qaban doono kulanka ugu horeeya ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee la soo doortay dhawaantan taas oo ah maalinta Talaadada ah. waata markana sidaad warka caalamka ku maqlayseen maleeshiyaadka Taliban ayaa gantaalo waxay la dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kandahar xilli ay sii wadaan weerarka ka dhanka ah dowladda Afghanistan. dagaalka ayaa waxa uu dhanka kale ka soconayaa dhanka iyo magaalada koonfurta waddanka Afghanistan ku taala Lashkar Gah halkaas oo ilaa xalay dagaal culus uu ka soconayay duqeymo dhanka cirka ahba. faafahinta warkan waxay noo haysaa wariyahayaga Kawthar Maxamed Abdullah. dagaalo xoogan ayaa xalay ka dhacay magaalada Lashkar Gah waxaana la rumaysan yahay in duqeymaha xagga cirka ah ee Afghanistan iyo Mareykanka loo adeegsaday in lagu bartilmaameedsado kooxda Taliban. ciidamada dawladda ayaa sheegay in la dilay kumanaan qof oo ka tirsan mintidiinta Taliban waxaana saaka ay isku dhacyadu ka bilaabmeen isla magaaladaasi Lashkar Gah. kooxda Taliban ayaa la wareegtay gacan ku haynta ku dhawaad guud ahaan dalka Afghanistan balse ma aysan ku guuleysan inay la wareegaan magaalooyinka muhiimka ah. maalmihii la soo dhaafay waxa ay dagaalo ka socdeen magaalada Kandahar iyo magaalada Hiraat ee galbeedka dalkaasi. xaaladdaasi ayaa hadda degan kadib markii halkaasi la geeyay ciidamo dheeraad ah. Xuseen Xaqaani waa safiirkii hore ee Pakistan u fadhiyay Mareykanka. waxa uu sheegay in ciidamada Afghanistan ay u baahan yihiin diyaarado dagaal oo dheeraad ah si ay ugu adkaadaan kooxda Taliban. all through the 20 years that the Americans and the Brits and everybody else were there. inkasta oo 20kii sannadood ee Mareykanka iyo Ingiriiska iyo cid kasta oo kale ay halkaas joogeen haddana dhammaantood ma aysan dhisin ciidan cirka ah oo Afghanistan ku filan waxaana ciidanka cirka Afghanistan ka dhigeen gebi ahaanba kuwa ku tiirsan qandaraaslayaal hadda dalka isaga baxaya. Taliban waxa ay sidoo kale dileen duuliyayaashii Afghanistan iyagoo hawsha ku jira si farsamaysan si ay u hubiyaan inaysan jirin awood dhinaca cirka ah oo dhinaca dawladda ah. marka haddii la doonayo in Taliban aysan xoog ku qaadan Afghanistan waa inay ka tanaasulaan waxa loogu yeero geedi socodka nabadda oo ay isu taagaan sidii ay u taageeri lahaayeen militariga Afghanistan. They have to abandon the so-called peace process and actually get around to supporting the Afghan military. waxaa maanta la joojiyay duulimaadyadii gegida diyaaradaha ee magaalada Kandahar kadib markii kooxda Taliban ay subaxnimadii hore ee saaka ay gantaalo ku garaaceen garoonkaasi kuwaas oo burbur gaarsiiyay dhabaha ay ku ordaan diyaaradaha. xildhibaan laga soo doortay magaaladaasi Kandahar ayaa BBC-da u sheegay in sabtidii ay magaaladaasi halis ugu jirtay inay u gacan gasho Taliban waxaana durba magaaladaasi ka barakacay 10,000 oo qof iyadoo hadda laga cabsi qabo musiibo bini'aadanimo. ciidamada gaarka ah ee Afghanistan ayaa loo daadgurayay magaalada Hiraat oo ah magaalo dhaqaale ahaan muhiim ah. duqeymo xagga cirka ah ayaa sidoo kale lala beegsaday maleeshiyaadka Taliban oo ku sugnaa meel ka baxsan magaalada. ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda gaashaanbuurta NATO ayaa xukuumadda Afghanistan xukunka ka tuuray bishii November ee sanadkii 2001. bishii labaad ee sanadkii tagay ee 2020 ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump sheegay in ciidamada Mareykanka laga soo saari doono dalka Afghanistan. sanadkan 2021 madaxweyne Joe Biden ayaa isna shaaciyay in ciidamada Mareykanka ay dalkaasi ka soo bixi doonaan bisha 9aad ee sanadkan. waa tahay bal markana dhanka iyo Mareykanka aynu tagnay tartan quraanka kariimka ah oo inta badan ay ka qayb galaan caruur ku dhalatay waqooyiga waddanka Mareykanka ayaa sanadkiiba toddobaadkan oo kale waxaa lagu qabtaa gobolka Minnesota halkaas oo Soomaali badan ay ku nool yihiin. sanadka haddaba xilliga fasaxa ardaydu ay galaan dhanka iskuulada ayaa waxaa la isugu keenaa arday badan oo dhanka quraanka ku tartami doonta kuwaas oo ka kala yimaada gobolada Mareykanka iyo dhanka iyo waliba Canada iyadoo abaalmarino qaalina halka lagu guddoonsiiyo. faafahinta warkana waxaa Minnesota ka soo diray Siyaad Siciid Saalax. tartankan waa mid sanadla ah ayaa akiisii 7 sanadkan waxaana ku tartamaya 380 arday oo badi ku dhashay waqooyiga Ameerika
wuxuu socon doonaa muddo 8 cisho ah. maalinta xigtana waxaa lagu dhawaaqayaa natiijada cidda guulaysatay. waxaa mudnaan leh in labada arday ee tartankan ugu horeysa 30 jus oo gabdho iyo wiilal u kala tartamaya inuu mid walba uu heli doono baabuur lagu qiimeeyey $42,000. waxaana dheeri ku ah in ardayda kale ee kaalimaha hore gala inay heli doonaan lacaga u dhaxeeya $10,000 ilaa $2,000. maxamed amiin xasan waxa uu ka mid yahay ardayda tartankan ka qaybgalaysa sanadkan. waxa aanan weydiiyey waxa uu rajaynayo. alxamdulilah waxaa rajaynayaa inta kaalmo fiican ka helo oo tartankan aan soo diyaar garoobay intuu ilaahay u waafajiyo insha allah. ilaa xilli intee la-eg ayaa diyaar garoob ku jirtay? sanad camal oo diyaarinayay alxamdulilah. maxaad ka qaybgalaysaa? tartanku waa noocyo badan yahay, lambarkee ka qaybgalaysaa? 30 jus oo qur-aanka dhan ku tartamaya insha allah. maxaad rajaynaysaa inaad kala tagto meeshan? inta kaalinka koowaad inta qaataa rabaa insha allah biidnillah. oo baabuurka meesha yaalla ka haysatay insha allah. saas rajaynayna insha allah. weli ma ku riyootay adigoo tartankan oo kale ama guul ka keenay? waxaa lagu fikirayo oo dad badan u dagaaltamaan oo u diyaar garoobaan waa intii kaalin fiican helaan. alxamdulilah insha allah waqtigaasna intuu yimaado ilaahay ka barina insha allah. Dr. Sidow Cabdi Shariif waxa uu ka mid yahay guddiga qabanqaabada. waxaanan weydiiyey inuu iiga waramo qabanqaabada guud ee tartankan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وها إلهي مهدسة إن أن هذا قبل قابلة كجرنا مانتا أو فرتان كتهي سنة كي تذبات وحد مودسة سبحان الله يعني إن أرين لله ومعجزة أي تهي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسة إذا وحي إلهي وطواء اسكسعنا يعني مركوا مسابقة أو non profit organization أو لوغو طلقلي المهان كل الشيء ودن كان أمريكا oo muslimiinta ah. Soomaali kaliya maahan, waxaa ka qayb gala yani musaabaqada Canada laga imaadaa, muslimiinta oo dhan ay u furan tahay. Wixii Soomaali kaliya u xiran tahay maahan. marka waxa way si ardadaas ku nool meeshan iyo challenge-ga jiro oo waxyaalaha caqabooyinka jira dhan in ay ardadaas quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ku dadaalaan. Shariif, kharashka faraha badan ee ku baxa tartankan xagee buu ka yimaadaa? wax ku tara oo musaabaqada kaalmeeya dadka ganacsatada Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ganacsigooda Allah u hagaajiyo ayaga bixiya badana. wali waxay u baahan tahay kaalmay u baahan tahay. maxay uga dhigan tahay tartankan ardayda muslimiinta ah ee ku dhalatay Mareykanka? siyaad waxay uga dhigan tahay ilmaha halkan ku dhashay wadankan oo wadan islaaman ahayn, wadankan waa dadku ku nool western oo yaqaana macnaha waa mucjiso. ardadii lagu bilaabay musaabaqadan Imam Shaatibi in ay international ay soo qaadeen, Axmed Burhama kamida, Cabdiqaaliqa kamida, yani kuwaas waa tusaale kaliya oo macnaha waxaad arkaysaa say maalin kasta u badanayaan. maalin kastana waxa lagu soo marka hore waxa lagu bilaabay wax ka yar 40, maantana 400 bay marayaan. waxa ku jira maalin kasta waxa lagu soo diraa wax cusub. hadda waxa ku jira qiraa'aadka, waxa ku jira 20 juz. gabdhihii wiilasha xitaa waa la kala saarsaa daraadeed ardada runtii aad bay u jecel yihiin, aad bayna uga faa'iidaystaan. annaguna wixii tabarteena aan kama hagran. sanadkii hore waxaa la bixiyey baabuur, sanadkana waxaa dabadda yaala 2 baabuur. marka ardayda iyo waalidiinta say u bedeshay arrintan? subxaan allah, yani waa wax waad arkaysaan hadda musaabaqooyinka مثلا Kuwait iyo Abu Dhabi dawladaha maamula, meeshan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa maamula. baabuurtaas waxaa bixiya dad ganacsato Soomaaliyeed oo muslimiina raba inay quraanka Ilaahay kaga qayb qaataan sida aqoona suufi oo kale. haddana sanadkana hatta gabdhihii si macnaha ay u sinaadaan wiilashii gabdhihii waxaa loo kala qaaday juska 30 juz in ay gabdhahana gooni u tartamaan, wiilashana gooni u tartamaan. gabadha halkaa ka soo baxdana baabuur ay hesho, wiilka halkaan ka soo baxana baabuur oo helo. codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii siyaad siciid saalax oo Minnesota ka soo diray. bal markana Facebook aan siiyo fursadda qaar ka mid dhegeystayaashan ra'yigooda halkaa kaga soo dhiibtay warbixinta aynu ku bilownay barnaamijkan ee duqeyntii qaycad iyo dagaalka ka soconaya halkaas. jaamac maxamed food oo ka soo qoray caynaba wuxuu leeyahay waan bogaadinayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee dagaalyahanada al-shabaab ku qaaday ama ku duqeeyay deegaanka qaycad ee gobolka Mudug, waayo waa muhiim arrintaasi. Cabdisalaamka Georgia oo Galdogob ka soo qorayna wuxuu leeyahay duqeymaha uu Mareykanku ka geysto Soomaaliya waxaan mar walba
khasaare uu kasoo gaaro dad rayida waxaana loo baahan yahay intaanan duqeynta la fulin in laga sii baaraandego in duqeymahani ay khasaare u geystaan ama u geysan karaan shacabka iyo in kale waa tahay markana bal ciyaarihii aan eega xulka kubadda cagta ee waddanka Brazil dhalinyarada ayaa waxa usoo baxay dhanka iyo nusdhamaadka koobka olombikada ee kubadda cagta adduunka waa tartan ka soconaya magaalada Tokyo haatan waxaa soo haray Brazil, Japan, Mexico iyo Spain oo ah afarta kooxood afarta xul ee tartankaasi nusdhamaadkiisa ciyaari doona Brazil waxay iska soo reebtay Masar oo 1-0 ay kaga adkaatay halkaas oo taasna ay Brazil ku doonayso in ay kaga hortagto xulka waddanka Spain oo nusdhamaadkaasi ay ku tartami doonaan dhanka kalena ciyaaryahan Bailey ayaa waa Leon Bailey waxa uu soo wareegay dhanka kooxda Aston Villa isagoo soo tagay kooxda Bayern Leverkusen ciyaaryahankaasi garabka kaga dheelay 23 jirka ayaa wuxuu dhilay xulka waddanka Jamaica markaanse barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Cabdisalaad Nuur oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Mahad Salaad Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Canada sanadii 2016 haddaba haddii uu namaqlay Mahad Salaad Nuur ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdisalaad Nuur ayadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Zahra Ahmed oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Samatar Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Malaysia 2001 haddaba haddii uu namaqlay Samatar Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zahra Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Ikraan Cali Saalax oo joogto Dobley waxay baafinaysaa Nimco Cali Saalax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2016 haddaba haddii ay namaqlayso Nimco Cali Saalax ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ikraan Cali Saalax iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Saafi Jaamac Samatar oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Cabdiqani Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2005 haddaba haddii uu namaqlay Cabdiqani ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Saafi Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Xaashi Nuur Aadan oo jooga Geedweyne waxa uu baafinayaa Geelle Nuur Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jarmalka sanadii 2014 haddaba haddii uu namaqlay Geelle Nuur Aadan ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaashi Nuur Aadan iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Faysal Abuukar Cabdulaahi oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Fuad Abuukar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Qatar 2014 haddaba haddii uu namaqlay Fuad Abuukar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faysal Cabdiqaadir iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Duniyo Daahir Yuusuf oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Farxiyo Daahir Yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 2015 haddaba haddii ay namaqlayso Farxiyo Daahir Yuusuf ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Duniyo Daahir Yuusuf iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Raxma Cusmaan Diiriye oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Warsame Diiriye waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2007 haddaba haddii uu namaqlay Warsame Diiriye ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Raxma Cusmaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Sacdiyo Cabdiqaasin oo joogta Tuulo Barwaaqo waxay baafinaysaa Aaniso Cabdiqaasin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2013 haddaba haddii ay namaqlayso Aaniso Cabdiqaasin ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sacdiyo Cabdiqaasin iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Cabdiye Biixi Guhaad oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Biixi Guhaad Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Imaaraadka 2013 haddaba haddii uu namaqlayo Biixi Guhaad ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdiye Biixi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Maxamed Cali Kooshin oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Nasro Cali Kooshin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ruushka sanadkii 2014 haddaba haddii ay namaqlayso Nasro Cali Kooshin ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maxamed Cali Kooshin iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Xasan Cabdi Saalax oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Maxamed Cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2014 haddaba haddii uu namaqlay Maxamed Cumar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xasan Cabdi Saalax iyadoo wax waraa loo sii marin karo
xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cabdiraxmaan cali gaas oo jooga beled xaawo waxa uu baafinayaa xasan ibraahim gaas waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suuriya sanadkii 2012 haddaba haddii uuna maqlayo xasan ibraahim gaas amabay jirta cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey cabdiraxmaan cali gaas iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. xabiibo cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa xamdi cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jabuuti 2015 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi cabdi amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xabiibo cabdi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nafiso mukhtaar cilmi oo joogta dhobley waxay baafinaysaa mukhtaar cilmi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga sanadkii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar cilmi aadan amabay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nafiso mukhtaar cilmi iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. samiir aadan cusmaan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa zakariye aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan tanzania 2013 haddaba haddii uuna maqlayo zakariye aadan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo samiir aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. axmed aadan cabdicasiis oo jooga faanweyn waxa uu baafinayaa sundus aadan cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadkii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso sundus aadan cabdi amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo axmed aadan cabdicasiis iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ubax ibraahim ciise oo joogta baardheere waxay baafinaysaa maxamed ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan china 2010 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed ibraahim amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ubax ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nimco mursal xaaji oo joogta kormaarey waxay baafinaysaa hindi farxaan cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka kenya sanadkii 2010 haddaba haddii ayna maqlayso hindi farxaan cumar amabay jirta cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo nimco mursal xaaji iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. luul miro jaamac oo joogto baardheere waxay baafinaysaa dahabo miro jaamac waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan mexico 2012 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo mire amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luul mire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. aamine cabdinaasir jamaal oo joogta hureena waxay baafinaysaa xaliimo cabdinaasir jamaal waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka libiya sanadkii 2002 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo cabdinaasir jamaal amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aamine cabdinaasir jamaal iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. hinde axmed daahir oo joogta baardheere waxay baafinaysaa sacdiyo axmed daahir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan suuriya 2013 haddaba haddii ayna maqlayso sacdiyo axmed daahir amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hinde axmed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. faarax maxamed cabdi nuur oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa maxamed cabdi nuur asad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka uganda sanadkii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdi nuur asad amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faarax maxamed cabdi nuur iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cabdicasiis axmed oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa cabdiraabi axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mozambique 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiraabi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdicasiis axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. xaliimo muuse axmed oo joogta baardheere waxay baafinaysaa faadimo cusmaan cabdille waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada sanadkii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo cusmaan cabdille amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xaliimo muuse axmed iyadoo wax waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. farduuso cali mire oo joogto baardheere waxay baafinaysaa sawdo cali mire waxaa ugu wardambeysay sanadkii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso sawdo cali mire amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo farduuso cali mire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay sucaado daahir nuur oo joogta baardheere waxay baafinaysaa xamdi daahir nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi daahir nuur amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo sucaado daahir nuur iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafintiina maanta waa nagintaa. faysal bishar aliigi cashadii u mahadsan yihiin barnaamijkii idaacaddii duhurnimo ayaan halkaa kusoo gabagabeynaya waxaynu balana 5 galabnimo inta ka horeysa nabadgelyo.